إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون والله dhibaato taagan Soomaaliya maalin walba wax laga naxo iyo qaracan iyo murug baa laga soo sheegaya wax indhaxuma baa Soomaaliya laga soo sheegaya wanaagba iyo farxadi kamaba timaadaba laa xawla walaa quwwata illaa billaah aliyul cadiim wiil yar oo saqiir oo ilmo yar oo aan qaangaarin 5 jir in la yiri baan u malaynaya baa waxaa dilay nin weyn oo hooyadii qabay oo adeer hooyadii qaba ayaa dilay oo kow ka sii oo intuu qabsada barees ku garaacay fiilada korontada ayuu ku jarjaray gabigeediiba way go'go'day fiiladii waxaan u jeedaa iyadoo la istusaayo fiiladii oo go'go'day iyo jirkiisii oo wada haaro suu u garaacay u jirdilayay waxaa la istusay xataa meel uu madaxa ugu dhuftay baa la yiri oo dhaawac baa madaxa uga yaal baa la yiri iyo dhegta dhiig baa ka socdaa la yiri runtii waxa ay ayeedii baa la wareystay waxay tiri ma aqaanay tiri wuu xaaray nafla caarigi buu la xaaray bay tiri wiilka marka waxa weeye waa ayaan daro hooyooyinkan maxaan ku raada intay ilmaha nin kale u dhalaan ama reer kale u dhalaan nin kale la guursanaysa ee ula tagaysa nin kale ilmahan waxa weeye dhibteeday leedahay ninna ilma uusan dhalin ma rabo waliba special ragga wax magaradka ragga yaryar ee aan horay u soo guursan oo aan ubad horay u soo dhalin oo beer wax dhalay aan ku oolayn waxa weeye ma rabaan ilmo aanay dhalin ma rabaan marka midda u geysa waxa weeye dhibaatadaas sugaysa qaracankaas sugaya indhaxumadaas sugaysa gablankaas iyo geeridaas sugaysa in ay ooydo ayaa sugaysa murug baa sugaysa marka aad iyo aad baan uga xumahay dumarka Soomaaliyeed ee ilmahooda uga tagaya qof aan dhalin horay waan idinku soo duubay waxa fiiriyoyadaydii hore aan soo duubay bay ku jireen dib u daawada dib u dhageysta bal inaad wax ku qaadataan waxa weeye ilmaha qofna ha uga tagin hadduu marba yar yahay oo uusan xoog lahayn waxa weeye qof ha uga tagin ilmahaaga cidna ha uga tagin cidna laguma aamino markaad baxaysid boorsadii oo kale u qaado boorsada garabka suratidoo kale isna garabka suro ilmahaaga kaxayso gacanta ku dheg meel walbood aadid la aad cidna ha ku aaminin sanadka maanta aamin waa dhammaaday cidna lama aamini karo cid la aaminaa ma leh waxa weeye dadkii way isbedeleen dadkii hore oo kale ma aha dadkii xalaasha ahaa ee sharafta lahaa ee qiimaha lahaa ee sharaftooda ilaashanayay iyo magacooda ma jiraan maanta dad waxaa yimi xanuunsan oo jiran oo cudur qaba oo maxaan ku irahdaa sharafba aan dhowranayn oo shaarba aan kala jeclayn iyo sharaftooda oo waxa walba oo xun samaynaya oo careless ayaa dadkii Soomaaliyeed ku soo batay waagi hore waxyaabaha qaar ceeb bay ahaayeen ilmo yar qof weyn ma uu dili jirin kuma uu saqajaami jirin
marka maanta waxa socda waxa weeye dad waalan 30 sano dadku dad fiyow ma ah waa la waalan yahay runtii Soomaaliyeed dadkan dad fiyow ma ah waa dad dhaqan ahaan u burburay maskax ahaan u burburay dhan kasta ka burburay bili aadanimadii xataa way ka burburtay waxay noqdeen wild animal bal ilmaha yar hadda siduu u googooy madaxa uga garaacay cadow baad moodaa inuu la dagaalamayo ma wuxuu rabay inuu karsado cuno ilmaha yar waxaa la yiri ayaydu waxay sheegtay in ay tiri waa kaa uu isku xaaray bay tir xaarkiis waa ka halkaa yaal marka nafalcaariga inuu la xaaray iyo in kale waa ilmaha yar la baara waxaa laga yaabaa inuu ilmaha u garaacay waa qaawanaabay tiri gabar kaloo la wareysanayay funaanad kaliyo xirnaabay tiri gabar jaarka ahayd oo indha shareer xirneed dhar madoobayd waxay tiri funaanad kaliyo xirnaa maxaa cunuga qaarka dambe ka qaawiye funaanada kaliya u xiray waxaa la isweydiiyey Soomaaliya yaan lagu degdegin ilmaha yar yaan la aasin jeer la baaro in uu faraxumeeyay maybe laga yaabo ilmaha yar ha la baaro dhakhtarka ha la geeyo dabcan I think hadda waaba la geeyo dhakhtarka laakiin ha la baaro Soomaalidu waxay yaqaanaan in qofkii isagoon la baarin qabriga la geeyo ciida ha lagu booba la yiraahdo hab na dhaafiya oo kale like rabasho kale qashin oo kale in la iska tuuro qofka waa in xaqiisa la baara iyo xuquuqdiisa sababta uu ku dhintay waa in la baara ninkan sababta cunuga uu u qaawanaa waa in la ogaado kow waxa uu u xaaray cunuga uu isugu xaarayna waa in la ogaado nafla caariga dabcan dadku way la xaaraan dadka qaar markay nafta qabato dad waaweyn oo xaaraa jira xataa laakiin cunuga waxaa la yiri wuu qaawanaa dushu wuxuu ka qabaa la yiri funaanad marka wixii qaawiyey sababta loo qaawiyey waxaa weeye in la helo proofkeeda waa in ilmaha yar waxaan anigu dadkii dhalay farayaa ilmaha yar in la baaro DNA laga qaado laga baaro maxaan ku radaa in la faraxumeeyay laga qaado maxaan ku radaa minada ninkii laga baaro runtii sababtoo ah waxa weeye dadkan lama aamini karo wax walba waa laga filan karaa dadkan hadda jooga wax walba waa laga filan karaa dadkan waalan ee xanuunsan ee kulli xabeebka ah ee dhimir kala wax walba laga filan karaa marka waa in la baara ilmaha yar waa inaan la aasin oo la iska aasin waa in la baara sidaasan faraya ummadda Soomaaliyeed dadkiisi uu ka dhintay hooyadiis maxaan ku raad adeeradiis eedooyinkiis habaryarihiis waa in la baaro ilmaha yar saqiirkaas yar ee miskiinka ah waa in la baaro wixii lagu sameeyay aabbo buu dhahayay tiri caloosha ay xanuunta wallaah balaaya ku aabaysatay kaas miyaa aabba la dhihi karaa aabbaha ma ihi kuye aabba umaba qalantide disgusting baaba tahay aabba uma qalantide ilmaha yarka ah aad dishay mujrim yahow aabbaha ma ihi kuye gabadha waxay tiri waan maqlaay aabbaha ma ihi aabbo buuna lahaay tiri ilmaha yari xaraam aabbo wuu u yahay hadduu wax garad yahay hooyadii buu qabaa laakiin aaway hadda caqligii aaway garashadii aawa akhyaarnimadii ma jirto aawa naxariistii ma jirto aawa bili-aadanimadii ma leh aawa inuu diiro ma jirto damiir ma jiro laa xawla walaa quwata ilaa billah caliy alcadiim runtii aad iyo aad baan uga xumahay ilmaha yar
ee sidaa loo galay. ilmaha yar waa in la baaro, waa in xaqiisa la helo, waa in loo dadaalaa. ilmaha yaree saqiirka ah meesha lagu dhibay, xaqiisa lagu galay, dhiiggiisa lagu galay, wanaag lagama sugaayo. muqdisho may degtaa la leeyahy, ma degayso intii saqiirka sidaa loogu dilaayo. saqiirada maalin walba mid digsi lagu rido, mid laa xawla walaa quwata illaa billah. soomaaliya dhan baa waalan wallaahi billah. soomaalidu wax mayar qaba way yaryihiin. ilaahayo mayarkaa naga qaadin rabbiyo. dadkan ilaahay ha soo hadeeyo. dumarka soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa, gabdhow, dumarow, yaa waxa dhashiina ilaashada. dhashiina dhurwaayada ha u dhigina. dhurwaayo iyo wild animal ha u loodina, ha u loogina, ha u loogina, ha u loogina. dhashiina dhurwaayo iyo wild animal cuna ha u loogina. cadow ha u loogina. dhashiina waabad dhasheene, dhibkii aad u soo marteen yaa waad og tihiine. ilmihiina dhib kasta ha idinku ahaatee dhagta qabsada. meel walbaad aadaysaan la aada, kaxaysta, ilaashada, isha ku haya. ishiinu yay libiqsan baa idin dhah. sidaa ugu haya isha. ilmaha la sheekaysta, ilmaha waraysta. ilmahan inta maxaan ku dhaha cuntada la siiyo laga aamusayo wax fiican ma aha. ilmaha waa lala sheekaystaa, waa la weydiiyaa wax. marka waxaa weeye soomaaliyey sidaan waxa laga bedelo. sidaan waxa laga bedelo. sidaan xaq ma aha. sidaan bini aadanimo ma aha. sidaan waxaa weeye waa ku rogmanaynaa sidan oo kale. xaq darro xun baa socota soomaalida dhexdooda ay isku hayaan. saqiirkii lagu hayo weliba iyo mayeeraanki ilmi yaryara sabigi. laa xawla walaa quwata illaa billah. war waan salaamaya. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.